السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحاب تقاليق قيمها إيه قدرين تبضن ملك صودا فها دنيا أتكجوكتين يوتيوب كداون سوا على دقن هداد نقول عصبتهاي لايك كومنتي سبسكرايب انتو بوينو ديري قليان هدي أن لجوكتين آد بعض ما صنتهاي لكن أصحاب تدلو داق حقيقة انت مركا عنك إمادو وحان ربا إن أن وحير أن لو ذاك هدو إلى هيرادو وحان لو ذاك يحاويان دباتدا يدعى يبركي انت لوها dadka ama dadkeena Soomaaliyeed gaar ahaan galbeedka city waxaan rabaa haduu Ilaahay yiraahdo waxyaabaha ka jira ee xaqiiqada dhabta ah in aan la wadaago inkastoo oo adduunka intiisa kale oo dhan laga go'doomiyay haday tahay dibadda iyo haday tahay dalkaba aan laga go'doomiyo cid warka hayso in Ilaahay aan ahayn ayna jirin dibaatada lagu hayo waxa kamid ah kow in iskooladoodii albaabada la isku dhuftay muddo hadda laga joogo 5 sano ka hor laba in ceelashii biyaha la daboolo ama se laga xiro dhamaantood la burburiyo saddex in wadooyinkii ay wax u soo marayeen la xiro ama se la dudumiyo afar waxa la go'aansaday maalin kasta in dad laga laayo waxa la iska dhaadhiciyay dagaalkan joogtada ah ee lagu hayo kuwada sidii ay dhulkan ay uga guuraan laakiin fikirka dadka halka joogo way ka duwan tahay cidad soo qaadaysa duulka ama soo duulimaad tagaysa iyo dadka meesha degan ee Ilaahay oo dhigay laba fikir bay kala duwan yihiin kuwana waxay leeyihiin duulaanka iyo gomaad ku haya barakiciya si dadkan meesha ay uga guuraan laakiin dadka halka jooga lagama yaabo dad xagee ka guuraya maxaa yeelay dagaxba Ilaahay meel buu dhigaa halkii uu Ilaahay uu dhigay ay ku dhaqmeen ay ku dhasheen ay joogaan siday doontaba ha ahaato waxay soo socotaba maanta waxa ay joogtaa in dawladda Itoobiya oo waligeed ba xasuuqi jirtay ummadda Soomaaliyeed ay u xasuuqi jirtay ama se u leeyin jirtay Soomaalinimo iyo isirnacayb darteed iyo cunsuriyad iyagoo iskaashanaya iyagoo ishuwan ayaa dagaalo ama weeraro aan kala joogsi lahayn maalin kasta ku haya galbeedka city siday doontaba ha ahaatee ninkii Ilaahay dila u baadhinta laakiin way nool yihiin waa dad nool oo soo jeeda weeyaan oo qalbiga ka nool dad qalbiga iyo maskaxda ka nool weeyaan oo waxa ay cunayaan iyo waxa ay xiranayaan iyo waxa ay cabayaan iyo waxa ay qaadanayaan ba ay tahay xalaal waa dad Ilaahay u dhow Ilaahay yaqaana waa dad dhimashada yaqaana waa dad yaqaana runi waxay tahay beena waxay tahay waa dad yaqaana mala awaalku waxa uu yahay xaqiiqada waxay tahay dad yaqaan weeyaan siday doontaba ha ahaato waxaan rabaa video kooban oo inta aan ku sheegay ka turjumaya adigu markaad aragtidna aad garan doontid xaqiiqada ka jirta laba video baan ku hayaa labada video waxa ay kala yihiin mid waxa weeyaan wiil yar oo ku qiyaasay 16 jir 17 jir oo sida uu ciyaarayo iyo sida uu sameynayo iyo sida uu faraxsan yahay ay adduunka inta kale ay admoodayso in adduunka inta kale ay jirin farxadaasi iyo tamashlayntaasi iyo geesinimadaasi iyo kartidaasi waxaan kaloon ku hayaa dad iyagana kamid ah oo galbeedka city un kamid ah oo afartii beene garjow laga xidhay haday tahay waxaan maqli jirnay qase waxa laga xidhay cirka dhulka iyo badda laakiin dadku waxa laga xidhay intii ay wax u soo marayeen biyihii baa laga xidhay doonigii baa laga xidhay iskooladii baa laga xidhay tacliintii baa laga xidhay iyo qaar kale oo badan iyo wixii daruuri u ahaa magaalooyinka waxa u dhaamiya booyadu dadkii mas'uulka ka ahaa ee Ilaahay mas'uulka uga dhigay ee iyaga matelayay ee magacooga sitay maxaa la yiraahdaa iyaga kursiga ku fadhiyana way ka warqabaan laakiin kama warqabaan marka aan kulaahay way ka warqabaan laakiin kama warqabaan waxay tahay way arkayaan dhibta iyo xasuuqa iyo dhibaatada lagu hayo laakiin dagna jala kuma siiyaan maxaa yeelay kursigooga iyo danahooga gaarka ah ayaa kala weyn sidee doontaba ha ahaato duunka dibta waxa la yiraahdo wax dib la yiraahdo marna laguma waaro dibta laguma waare waa laga dhamaadaa mar un baa laga dhamaadaa mar un baa laga bixi mar un ba iska dhamaanay dadkana qofka uu Ilaahay u tiisa u keenay
saacadiisu ay soo gashay waa dhimani maxaa yeelay waxaan nahay dad muslim ah aaminsan dhimashada geerida adduunkan in aan marnaba lagu waareynin adduunkan in laga tagayo waan ogsoonahay sidaa darteed saacadaadu markay imato horeyna uma dhacayso dibna uma soo qadimayso dibna uma dhacayso saacadii ilaahay uu qadaro ayaa dhimani halka uu ilaahay ku qadaro inaad ku dhimatidna waad ku dhimani marka waxaan leeyahay dadka masaakiinta ah ha laga warqabo dhibtooda ilaahay maahina cid kale oo warka haysa ama ka warqabta ma leh laakiin xaq bay u leeyihiin inay helaan xorriyad xaq bay u leeyihiin inay helaan biyo xaq bay u leeyihiin inay helaan iskuul xaq bay u leeyihiin in ay xorriyad ay ku tamashleeyaan lama joogo waqtigii la iscaburinayay la isguumaysanayay la isguumaysanayay lama joogo balse waxaa la joogaa 2021 haddii aad aaminsan tahay adigu 2021 la isguumaysani ama la isdhibaatayni fikir qaldan iyo aragti qaldan ayaa kugu jirta kan ilaahay baa ballaariyay ilaahay baa iska leh koonkan iyo adduunkan ilaahay baa iska leh isagaana uu arrimiya kan isaga uu arrimiya laakiin waxaad ilowsan tahay dhagax kastaba ilaahay halka uu dhigay ayuu yaalaa waad dareensan tahay adigaan kula hadlayaa kolay marka aad videogaygan aad daawatid ku farxi maysid kuna qosli maysid laakiin waxaa kuu sheegayaa dhagax kastaba ilaahay halka uu dhigay ayuu yaalaa cidna lama muquunin karo cidna lama xoogi karo xoog waxaa kugu filan aragtidii wiilka yar ee 16 jirka 17 jirka aan ku qiyaasay ee sida uu u tirtirfanayo dhikilaha ku jira geesinimada iyo qalbiga ku jira adiga halka baad ka dheehan ka arkay boqolkiiba boqol galbeedka city dadka joogana waa dadka weeyaan waxaad u malaynay marka uu yahay kii ugu yaraa ee inta la ka da'diisu marka uu sida u tirtirfanayo ma garanaysaa ay xabadiisu ay dhul u dhacayn waxaad u malaynay kii weynaa ee way soo jireen ama way soo joogay ama wax badan ogaa sidee doontaba ha ahaato waxaan rajaynayaa videogan inaad share garaysaan meel kasta ku share garaysaan iga gaarsiisaan galbeedka city iyo walaalaha halkaa jooga anigoona ka tegaynin inaan tacsiid u diro oon idhaahdo ciddii dhimatay allah u naxariisto inta dhaawacana ilaahay ha u booyadhayo guulaysta baan ilaahay markastina guulaysta warkiinu ha ahaado hore u socod cadaalad iyo alla ku xidhnaan ilaahay ha lagu xidhnaado cidna ha dulmina ha qaadanina adigu cidna ha dulmin cidna ha dilin cidna ha dhibaatayn dulmi ha qaadan adiguna dulmi ha qaadan aad iyo aad baan nii salaamayaa waxaan iniga soo salaamayaa barta aan ku leenahay youtube-ka cali dhaqan mar labaad iyo mar saddexaadna waxaan leeyahay haddii adigu aad nagu cusubtahay daawade subscribe like iyo commentigu waa noo farxad waana dhiirigeliyaa si aan usoo sameyno videoyo kale si aan kuula wadaagno kolba wixii cusub ee jira iyo ka jira geyga Soomaaliyeed oo dhan aad iyo aad baad u mahadsan tahay waxaan inaga tagayaa inta aan isugu iman doono videogan xiga assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh